السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa u jeedaan nin dhalinyaro ah sawirkiisa ninkan dhalinyarada ah xogtiisa maantadii hore waa idin la wadaagna saaxiibadan ugu xiran waxaad kale u jeedaan halkaas ninka ka muuqda koofida gashan ninkan waa ninka nafta dhaafiya ee Soomaali Kenya war kala ka soo jeeda laakiin kaamiradu waxay qabatay gabar Soomaali ah oo walaalkeed Soomaali ah oo ninkan uu xabad ku dhuftay meedkiisina meeshii uu yaalo ka talaabsanaysa oo xitaa aanan sii jaleecinin arrinta yaab kale waxay tahay haweeneydan Soomaalida Nairobi ayaa lagu qabtay way xirantahay hadda waxaa loo haystaa inaysan laamihii amnigana wargelinin dadka guriga la joogayna aysan u sheegin in nin Soomaaliya meesha lagu dilay oo ay macnaheedu looma qayla dhaamin gurmad looma sameyn arrintan waa aad looga yaaban yahay marka waxay kaamira si sidoo qabataan isla fiirinayna ninka sii socda waa hadda waa la baaraa kiiska meesha mujida qofkaas meesha taagan maradaas wadata ee buluuga ah gabadhi Soomaalida lagu sheegay inay tahay guri Soomaali degan fiir markuu falka dhaco way tartiibteedu si galay dharkana u jeedid waa dharkii uu watay wiilka Soomaaliga cadeemahaas Telegramka ayay ku jiraan caadiyan halkaas aad ka soo arki kartaa marka kale gabadha si fiican u fiiri markuu ninka nafta dhaafiyay mobile uu ka qaataa la yiri uuna baxay marka warara marka magaalada aad isku dhaxmaraay annaga aynan cadeyn karin laakiin dadku ay leeyihiin gabadhan la xiray wiilkan iyada ayaa waxaan u abaabushay oo kale waxaana sababtaas ay u leeyihiin wararkaas madaxa bannaan ee sheegaya wax kale maana waxay leeyihiin gabadha markii falka uu dhacay way ag joogtay qof kor ka soo socday maaha agteedu falka ka dhacay kadibna way ka tallaabsatay guriga gashay intaas kaliya kuma eka waxay leeyihiin ma aysan sii raadinin oo ma aysan sii gudagalin arrinta wax ku saabsan sidii ay dadka guriga la degan ugu sheegi lahayd oo dhiilad meeshan xaalada ka dhacday war ha laga soo gaaro war ninkan Soomaaliga ha loo gurmado ma aysan dhihin waxa kale oo ay leedahay dadka ay leeyihiin gabadha waxa ay iyadu si gaar ah sameysay leeyihiin in ay shib iska dhahday ilaa baaritaankii laamaha ammaanka uu ku yimid taas oo ay leeyihiin taasa sabab u noqotay gabadha in si gaar ah loo soo aaday iyada lana dhaho muxuu ahaa maxaa u sheegi weysay oo arrintan uga hadli weysay marka meeshaas caqabad ka imaada ayaa leeyahay gabadha waana runtii arrin iyada naftigeeda su'aalo badan ku abuurtay oo hadda issue-geedu uu aad u taagan yahay marka fiirisid ninkan dhalinyarada ah waxaan soo gelin Telegramka cadeemaha intaan ka badan Kenya marka waxaa u socdaa dadka Soomaaliyeed ee meeshaas jooga waliba meelo kala duwan ha noqoto ama magaalooyinka kale ama Nairobi aan afka ku adkeeno halkan xaalada ka taagan walaalaha sharafta badanow ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan sababtu wax kale ma ahane meeshan waxyaabaha ka soo cusboonaada waxaa kamid ah in nin Soomaaliya afar gabdhood ay ku maqan tahay haddana ajnabi kiiskan uu soo galay hadda nin Soomaaliya oo lagu dilay adan Soomaali kala waay gabar haddana meesha soo istaagtay kiiska uu ka dhacay macnaheedu waxyaaba caadi ma ahan leeyahay marka intuu kiiska noocyadan oo kala dhinac u dhacayo waxa aad muhiim u ah in dadku ay iska ilaaliyaan kiiskan hadda wuxuu aad u abuuray hadalhayn ninkan muxuu ahaa nin dhalinyaro ah lagu sheegay iska shaqaysanayay waliba dadka nolol maalmeedkooda sida caadiga u harjada dagaalama oo macnaheedu dagaalama marka waxa waa nolosha la harbiya hasal nin jabhadeenayo ahaa asaga isku filnaa ordaayay inta tabartiisa ah wax oo macnaheedu hadda laga dila karayna uu watay male marka waxay leeyihiin Kenyaanka inta badan ma lahayn leeyihiin dhaqamada ah qofka haday dhacayaan inay madaxa ku dhuftaan ama ay nafta dhaafiyaan waxyaabo lagu yaqaan ma aha qofku way ka qaataan way ka tagaan ay dadka magaalada joogin badan kamid sheegayaan kiisas yar markii laga reebo qofku midi oo kale xabad in lagu dhex dhuftay meeshii gabar Soomaaliya ay joogtay xogaa dadku waxay leeyihiin arrintan waxay abuurtay shaki weyn iyo cabsi weyn ayay nagu abuurtay leeyihiin waana wax runtii marka si loo fiiriyo macquul ah hadda marka gabdhaha Soomaaliyeed ama ragga Soomaaliyeed ee meeshan jooga waxa la gudboon intii tabartooda ah inay is ilaaliyaan taxadaraan oo ay aad u fiiriyaan meelaha cagta ay dhigayaan waa meelo runtii la iska soo gali karo waa meelo dhibaatooyinka hadda nagu socda ay aad u badan yihiin oo aad dareemaysid in Soomaalidu ay yihiin dad runtii aad dhibaatooyinka ugu soo laabtay maalmahan laamaha amni marka ka hadalno Kenyaanku waxay sheegeen inay baaritaan qoto dheer sameynayaan ninkan hadda la raadinayo gabadha laakiin maxaa laga yeelaa gabadha waxaa la sheegay in baaritaan uu ku socdo ay meeshaasi ku jiri doonto xabsiga inta kiiskeedu dhinac u dhici doono sababtun wax kale ma ahayn la yiri gabadha iyadu way aamustay waxa marka dhici karta baarista kadib inuu war ka soo baxo arrintan sababta gabadha bartilmaameedka hadda loogu dhigtayna waaba sheegnayba wax kale ma aha way aamustay Somali Sudanese Specialist Hospital waa isbitaalka ugu fiican dalkeena waxa uu ku guuleystay markii afraad u xiriir abaalmarinta isbitaalka ugu fiican dalkeena hadda aad minaad naftaada rabto haddii kalena xaan kuugu aalhe marka gabadhan cabsi ma laga yaabaa inay keentay inay aamusto waxyaabo waxaa jira qofka markuu kiisaska noocan oo kala arko inuu sameeyo aamusnaan oo cabsidii uu isdhowrniyo qofka ag maraysay oo qofka nafta dhaafi wajiga uu arkay
meeshaa gashay wuu arkay amuu adig ku dhibaateeyaa taas way dhici kartaa inay u bakday waana waxyaabaha laga yaabo inay laamaha amniga u sheegto oo dhici kara dad badan oo marka waxaa jira inta badan markay dhibaatooyinkaas la kowsadaan talooyin lagula sii dadka ay ku warceliyaan xitaa waxaa dhici karta gurigii ay ku laabatay inay dadkii dhahaan niyo aamus wixii maaragtaha amaa lagu dhibaatay alxamdulilah afkaaga qabso ayagaa baaranaya inay saas dhaheen waa laga yaabaa oo haddii xitaa iyadu go-aankeeda ay ku gaari lahayd go-aano ka tira badan inuu meesha u yimid la saameeyey oo ay bakday way dhici kartaa waxaa kaloo dhici kara in intaasoo dhan aysan dhicin oo gabadha ay waxa hadda lagu eedeynayo magaalada isla dhex marahay ay sax tahay oo ay ku lug leedahay way dhici kartaa iyadana waxaa marka DCI-da teamkan la yiraahdo Department of Crime Investigationka ayaa aad u raadinaya waa niman khatara Kenyaanka arrimahaas aad ayay runtii loogu amaanay waxa xitaa ay noqdeen teamka maaragtay aad loo baraarujiyay isbuucyo dhexdaasa shaqooyin ay qabanayeen oo shacabka Kenyaanka aad u wataan marka waxaa imaan karta arrintan inay natiijo kale ka keenaan Kenyaanka aad waxay ula dhacaya maalmahan kiisaska ku saabsan serial killerska oo runtii qaatiliinta halista ah oo magaalada dhibaatooyin ka geysana haddana baxsanaya kiis ayagoo weliba aan xalinin oo Soomaali quseeyay oo nin hadda uu xiran yahay 4 gabdhood dhibaatay ayaa haddana kiis kale oo nin Soomaaliya la dilay meeshii soo galay haddana meeshii ay agtaagan tahay gabar Soomaaliya ninkan kale xitaa ay qofka nafta dhaafi ma cadda ilaa hadda ma Soomaaliya ma Kenyaana laakiin marka fiirisid muuqaalkan hadda aan isla fiirinay oo aan hadda mar labaadna ku celinayno uma muuqaal ka qofka qof oo qaab shabaha Soomaalida lagu yaqaan ma aha marka laakiin waxa la rajaynayaa hadduu ilaahay kala noqdo bal in natiijo tan ka weyn ay soo baxdo fariinta marka kale waa lagu celinaa xitaa Kenyaanka naftooda waa ku talinayaan gabdhaha keli socodka keligood socda inay is ilaaliyaan keligood soconin ragga naftigooda dhalinyarada ah habeenkii xilliyada dibadka ah inaan la socon hadda falka markuu dhacay xilli habeen la shay meesha hadda waxa u jeedin dharkaas ninka dhalinyarada uu wata asagoo dharkiisa ku dhex jira ayuu anaga na soo gaaray sawiradiisa telegramka soo gelinta saaxiibadan ugu xiran dad badan oo idin kamid ah waxa laga yaabaa inay isweydiiyaan telegramkan baas ninkan uu ka sheekay maxay tahay maanta waxa uga faa'iideysanaa fursadaas inaan qaybta commentiga idin soo dhigo oo aad la socotaan si kasta ha noqoto arintii dhinaca Haashim hadda wax yar uga leexanana inta aan ka bixin oo gabagabadii joognay ninka Haashim la dhahay kiiskiisii meel gabagabuhu soo maraa waayo baaritaankii intiisa ugu badneed waxa la sheegaa in natiijooyin badan oo lagu howlgali karo maxkamadda ay aad maaragtay ugu qanci karto in la helay marka laga reebo dhowr wax oo hadda ay kala cadeyn u baahan oo ay sheegeen inay sii guda gali doonaan Haashim isaga qareeno u doodaya jira oo xarbinaya oo dhahaya ninkan waxyaabahan wax oo itus itaabsiya oo qof maaragtay lagu eedi karo meeshii ma taagna ayagoo dhahaya marka waxaa markastana waa ogtiin qofka dambiile uu yahay wuxuu xaq u leeyahay dhinaca kale sharci inuu helo oo matalaad loogu matalo oo qareen uu helo si kasta uu yahay xitaa halaaga ugu weyn marka kiiskiisi asagana waa socda baaritaanadii ayay DCI soo dhamaystiraysaa maalmaha soo socda ninkan hadda u jeedin sawirkiisaas laakiin arrinta cusub ay tahay gabadhaan u xiran oo hadda xabsi ugu jirta iyadana wixii ka soo kordha halkaan u fadhinaa inaan idin la soo wadaagno aad iyo aad ayaad u mahadsantiin saaxiibayaal salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidaan noola socotiin oo ku mahadsantiin